ما أنت إندي نمكو أركتان أرت ما أركتان مش يبغى أركين سو عالم كلام صعطان شركة جيبوتي كسعود ودليلنا وأنا حبارين قرن معها إن بنتلان أو إن يدو سومالي إن بنتلان كم قنتها اللي يرادوا سومالي على جه الله وأرين خلدان مدحونا حسن الشيخ هدو يرلو جوجين مايو هدا أدينا لقو جوجين مايو تا انت هاوغال دل كان ليسمع عبورين كرو هدان حق وحكوها يعني حقا شيء نينك كشقينيا هدو كشقينيا midna camlaha inuu halka u soo dirsado hadda dadkan dad u yaqaan ma aha wili waxba ugu dhiman dadka reer Puntland fariin u diri maayo aniga wixii ay awooyaashoodii abkooda yaqaaneen weeye waxaan kaliya u sheegayaa waxa dhexdeena ka jira kaliya ku mashquulin iyo damaca xoogaa damaca waa ku xunaa kaas waa qiraaya laakiin hoos loo eego waxa ka socda inta leeyihiin waxaan rajaynayaa haddii shil ku fakiraayeen saaxiibadayda musharaxiinta inay ka tanaasulaan inay dawladda xamar ka jirto la xisaabta la'aan ay halka ugu yimaadaan hadday wax ka heleen allah u calf laakiin waxaan oran lahaa dalka Puntland dal la gadan karo waa ka weeye inta waa iga fariin waana iga dood siyaasadeed marraba inaan aad u sheego guulihii dhacay dadka waa ay ka daragsan yihiin go'aanka ismada SSC Khaatumo ay gaareen 6 February waa soo dhaweyn haddana waa dhaweynaynaa welina waa ku taagannahay qorshahayga siyaasadeed ee cusub waxaa saldhig u noqon doona haddii xildhibaanada hadda aan la aqoonay qaybka ilaahay aan rajaynayo inay kuwa khayr qaba noqdaan ay soo baxaan waxaan halka ugu sii sheegayaa hadhowna waa u sheegi doonaaye 3 qodob baa asaasi u noqon doona waxa aan rabo inaan ka hadlo qodobka koowaad wuxuu noqonayaa in aan muddo gaaban iyo waqti ku filan u helo oo ku dhamaystiro dimuqraadiyaddii bilowga ahayd ee hana qaaday inay dhamaystirmato qodobkii koowaad inaan dhamaystiro dib u habeynta iyo sugidda amniga Puntland oo dadkeeda ay ku seexdaan ammaan ay isku halayn karaan oo ay ku noolaadaan taageeridda iyo ay kastashiga iyo mustaqbalka dadka deegaanka SSC Khaatumo waa qodob ka mid ah waxyaabaha haddii ilaahay u soo celiyo saldhigga u noqon doona shaqadeeda waxaan rabaa anigoo ixtiraamaya go'aanadaas waxaad ogtihiin Puntland beelaa wada aasaastay gobolada wada aasaastay isbedelka ku dhawaaqida maamulka ee saldhigiisu ah in soo lagu xareeyo kadibna isu bedelay 5 bilood ka hor inuu noqdo han iyo himile ay sugayeen oo ah inay maamul gaar ah dhistaan ما منعنيسو هورنا waa u sheegnay xuquuqda iyo xaqqa ay ku leeyihiin Puntland waxaan ixtiraameynaa muddada ay qabsadeen waxaan rajaynaynaa sida ay jecel yihiin aan kula shaqeyno waxaan se ogeysiinaynaa cid walba Puntland wili siday ku aasaasneed bay ku aasaasan tahay inta laga helayo xeerar iyo qawaaniin wax ka bedela saaxiibadeeda musharaxiinta ee shalay nafta noogu keenay 66 lagu noqdo inay hadda yiraahdaan 49 lagu galo horta ceeb bay ku tahay laba hadaloo isqabta ma aha 66 baan sugaynay 49 hadalkaas waxaan arkaa waa barashar siyaasadeed laakiin dadweynaha hadalkiinu waa gaaray mar labaad midka kale u sheegay ilaahiis waxaan rajaynaynaa sida dastuurka Puntland uu qabo 8 January inay doorasho dhacdo 66 ku salaysan annagoo ixtiraamayna go'aanada